maxaad ka taqaanaa dark web meesha kulmisa wax walbo sharci darro kulmisa dilayaasha ugu halista badan hubabka noocyadiisa kala duwan jirka bini'aadamka kufsiga caruurta muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan iyo wax walbo xun oo maskaxdaada ku soo dhaca maxay tahay sababta ay Mareykanku u sameeyeen webkan sidan u halista badan sidee soo hoos tagan jaraa'idada ugu waaweyn caalamka sidee loo galaa sidoo kale khatar intee laga yaad kala kulmi kartaa iyo dhacdooyin aan la rumaysan karin oo ka dhaxdhacay caalamkan madow ayaan muuqaalkan gudihiisa kula wadaagi doonaa ma ila socotaa saan wada ognahay internetka maanta caalamka wax walba fudeed ayuu ka dhigay hal kaliya ayaad suuqyada caalamka wax kaga iibsan kartaa hal kaliya ayaad film walba ku daawan kartaa hal qoraal ayaad caalamka dhan wada gaarsiin kartaa balse ka waran haddaan kuu sheego waxaas oo dhan oo internetka maalin walba aad ka isticmaasho ha noqoto Facebook TikTok Instagram Telegram Twitter marka loo eego internetka kale waa 5% oo kaliya oo internetka aan si maalinlaha u isticmaalno marka loo eego internetka naga qarsoon waxaan isticmaalnaa oo kaliya 5% oo 95 kale way naga qarsoon tahay bal ka waran haddaan kuu sheego sida aan si maalinlaha cuntooyin iyo alaab uga dalbano online-ka si la mid ay dadka qaarna internetka madow uga dalbadaan muqaadaraadka hubabka noocyadooda kala duwan iyo xitaa jirka bini'aadamka sidaan filmo uga daawano internetka caadiga si la mid ayaa meeshaas looga daawadaa dilal live ciqaabta caruurta kufsiyada iyo waxyaabo ayna marnaba indhaagu suuraysan karin haddaba fiidiyogan oo dhammaystiran maanta waxaan kugula wadaagayaa xaqiiqda dark web iyo waxyaabaha foosha xun ee ka dhaca ee ila soco muuqaalkan ilaa dhammaadkiisa laakiin digniin haddaba inagu aan ka daahin aan ku bilowno waa maxay dark web si guud dark web waa qayb ka mid ah internetka caalamka la isticmaalo kaas oo leh software u gooniya kuwaas oo kuu fudaydinaya in aan lagu soo tixraacin marnaba si guud marka loo qaybiyo internetka caalamka waxaa loo qaybiyaa 3 qayb oo kala ah surface web oo ah qaybta bannaanka iyo qaybta labaad oo ah deep web iyo qaybta hoose oo lagu magacaabo dark web oo ah qaybtan uu maanta mowduuceenu ku saabsan yahay haddaba surface web waa qaybta aan si maalinlaha u isticmaalno taas oo ay fududahay in Google lagu xiriiriyo sida YouTube-ka TikTok-ka Instagram-ka iyo waxyaabahaas basic oo dhan sidoo kale waxaa jirta qayb kale oo informationada inta ugu badan kaydisa sida xogaha bangiyada xogaha hospitaalada iyo xog walba oo password u baahan qaybtaas waxaa lagu magacaabaa deep web waana 94% marka loo eego internetka kale haddaba qaybtan madow ee ka qarsoon ayaa ah qaybta lagu magacaabo dark web haddaba qaybtan ayaa ah qayb gabi ahaan ka gadisan qaybihii hore kana argagax badan kana qarsooni badan kana halis badan haddaba qaybtan si aad u gasho waxay ka dhigan tahay inaad isticmaasho browser u gooniya oo taleefankaaga kama geli kartid balse waan kaaga digayaa inaad xitaa ku fikirto haddaba browseradaas aan soo sheegnay waxa ugu caansan browserkan oo loo yaqaano Tor oo laga soo gaabiyo The Onion waxaad isweydiinaysaa browserkan muxuu kaga duwan yahay browserada kale ee aan isticmaalno wax badan ayuu kaga duwan yahay oo kuwa aan isticmaalno waxay ku dhamaadaan sida .com .net iyo .org laakiin midkan dark web uu ka gadisan yahay kuwaas oo dhan oo wuxuu ku dhamaadaa .onion taasna waxay ka dhigaysaa mid aan gabi ahaanba la soo tixraaci karin taasna waxay ka dhigaysaa wax mamnuuc haddaad ku daydid browserada caadiga sida Google Chrome-ka iyo Opera haddaba browseradaas caadiga si aad u gashid waxay ku xiran tahay IP address-kaaga ama numberkaaga Wi-Fi-ga address-kaas oo la helana waxay ka dhigan tahay address-ka gurigaaga oo la helay marka haddaad rabto inaad gasho dark web ma waxaad gelinaysaa address-ka gurigaaga waa maya laakiin browserada u gaarka dark web way ka duwan yihiin dhammaan kuwaas oo kale oo waxaan macquul ahayn in la ogaado address-kaaga oo dhammaan raadkaaga baabiyaan oo qof ogaan kara ma lahan waxaad ka samaynaysaa meeshaas walaa dawlad baan ogaan karin taas oo ku siinaysa xorriyad noocii u dambeysay sidaan wada ognahayna bini'aadamka xorriyad noocaas haddii la siiyo waad garan kartaa waxa ka suurtooda oo waxaa soo baxa nooca ugu xun inna nafsa la amaaratun bisuu'at ilaahay quraankiisa ku leeyahay haddaba dark web waa qayb yar oo internetka ka mid ah laakiin qaybtaas yar ayaa ah qaybta galaafatay malaayiin dhibane noloshooda iyo waxaadan marnaba suuraysan karin qaybtan waxaa lagu qiyaasaa 1% oo kaliya marka loo eego qaybaha kale ee internetka laakiin 1% maxaad u malayn kartaa inay ka dhaxdhacaan waxaa ka dhaxdhaca wax walba oo xun oo maskaxdaada ku soo dhaca noqoto carruurta kufsigooda jidhka bini'aadamka xitaa waxaa ka dhex samaysan qolal loogu talagalay in laga daawado ciqaabta qof nool tusaale ahaan waxaa jira qol lagu magacaabo Red Room oo la soo geliyo kaliya sida dadka loo ciqaabo oo qof ayaa dhibana soo afduubanaya qolkaas ayuuna keenaya isla markaana si live ah ayuu qofkaas u ciqaabaya midda xanuunka badan ayaa ah inay dadkaas daawanaya ku raaxaysanayaan ciqaabta qofkaas dhibana oo weliba lacago kumanaana ku bixinayaan tusaale ahaan mid baa lacag soo dirsanaya kuna amraya qofkaas in gacanta la gooyo dhibanahaas weliba nool mid baa dhagta soo dalbanaya midba meel ilaa ugu dambeyn uu dhibanaha sidaas iyo cadaabtaas ku dhinto oo laga yaabaa xitaa oo
xayawaanadaas dhahaanba xitaa meydka jarjar oo shiid sidaas la mid ah ha ka reebin kufsiga carruurta yaryar oo ah waxa ugu badan ee meeshaas daarka web aad ugu tagayso waa carruur yaryar oo 7 jir ah xitaa aan qaangaadhin waxa meeshaas saas loogu galo haba u badnaadaan carruurta dalalka faqiireedka ka soo jeeda haddaba waxaad isweydiinaysaa meesha sidaas foosha xun ma wax laga qabto ama dawladaha caalamku may wax ka qabtaan aan kuu sheega haddaba sheekadan saad moodaysa uma sahlana oo xitaa dawlada ayaa ku lug leh sidaan wada ognahay daarku waxay ku caan tahay sirriyada taamka dadka ku faa'iido qabana waa shirkadaha jaraa'idka iyo sidoo kalena mucaaradka dawladaha oo goob badbaado ayay u tahayba sababtoo ah mucaaradka hadday ku wada hadlaan surface web dawladdii isla markiiba way ogaanaysaa wada hadalkaas oo surface web wax walba uu kontaroolan yahay sidaas darteed organisationadaas qaar waxay ku boorinayaanba in la isticmaalo webkan sidan u khatarta badan oo xitaa lacag ayay ku bixiyaan si loo update gareeyo mar walba ayagoo leh waa meel ku fiican freedom of speech ama xorriyadda qof kasta inuu ra'yigiisa dhiiban karo waa isla browserkii ay isticmaalayeen argagixisada kuwooda ugu arxanka daran haddaba daawade su-aasha ugu muhiimsan ee la rabay inaan wada ogaano waxaa waaye maxaa igu dhici kara ama maxaa iga soo gaari kara haddaan meeshaa sidaas u foolxumada badan aan galo xaqiiqdii waxaad arkaysaa waxa ugu foosha xun uguna argagax badan oodan dhihi karin ibnu aadan baa samaynaya ama ku fikirayaba xitaa waxaasaad indhahaaga ku aragtana isla markiiba maskaxdaada ayay ku koobigareysmayaan aad iyo aadna waad ugu qabumayn doontaa tusaale ahaan waxaad arkaysaa qolal ibnu aadan caadiga lagu karanayo waxaad arkaysaa dad si caadi ah u daawanaya oo commentiga bixinaya xitaa kumanaan lacagana ku bixinaya ciqaabta qofkaas sidaas loo galayo dadkaasna waxay u badan yihiin dad dhimirka ka xanuunsan oo ciqaabtaas bini aadamka ayay ku raaxaysanayaanba ugu dambeyn muuqaalka waxaan kusoo gabagabeynayaa marnaba ha ka mid noqon dadkaas dhimirka ka xanuunsan oo ciqaabta bini aadamka ku raaxaysa ugu dambeyn muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egay runtii aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan runtii dadaal badan iyo dhafar badan ayaa muuqaalkan iga galay so fadlan ha ilaawin inaad like saarto muuqaalkan sidoo kalena aad asxaabtaada la wadaag aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay bye